إلهي سبحانه وتعالى وحده إن الأعمال بالنيات يعني عمل كستا وحا كوين نيدا سو marka sheekadan maxaa lahay bilowgeedu waxay ahayd barank laakiin kadib wuxuu isku bedelay yani wuxuu isku bedeshay ilaahay maqaadirtiisa sheeka dhab ah saddex nin ayay ahaayeen maalin maalmaha kamid ah ayagoo baashaalaya laba yani saddexdooda laba kamid ah ayaa damceen saaxiibkooda saddexaad inay baranki ku sameeyaan soo marka saaxiibkooda saddexaad waa famil reer uu leeyahay laakiin muddo 5 sano xaaskiisa isqabaan 5 sano wax caruur ah uma aysan dhalin markaasay waxay soo magacaabeen hebel kalo afraad ee waxay dhaheen hebelkaas ma xasuusataa haa xaaskiisi maxaa la dhahayo waxay dhashay caruur badan kadib markii ay cabtay yani kaadida geela markay cabtay kadib waxay dhashay intaasoo caruur ah hebelkan wuu ka saayay horena inay ilmo u haysanin iyo waxaasoo dhan wuu ka warhaayay laakiin ayaga barankay ku sameynayeen laakiin ninkan sheekadii wuu aaminaybo serious uu qaatay runtiin miya hebel naagtiisa maxaa dhahay kaadigel intay cabtimay intaasoo caruura dhashay haa okay wada maxaa dhahay kheer waay ee adigana waxay dhaheen marka xaaskaada bal ku baroobay si ah maxaa dhahay caruurku ugu dhasho المهم sheekadii iyo kaftankii markii la kala dhamaaday oo qof walba xaafadiisa uu aaday hebelkii uu soo baxay wuxuu ku soo leexday maxaa dhahay meel geela lagu dhaqo meeshaas oo kaadi geel ka soo qaaday asagoo kaadida geela wada xaaskiisa uu imaadayba guriga ma uu ku soo leexanin markaasuu dhahay xaaskiisa uu u sheegay qisadii oo saaxiibadiisa maanta yacni dhaxmartay oo dhahay saaxiibadii waxay ugu dhaheen hebel xaaskiisa kaadi geel intay cabtay intaasoo caruura ay dhashay adigan wuxuu dhahay cab si ah maxaa dhahay ilaahay inuu yani daawo kugu daraa laga yaabay ilaahay maxaa dhahay awlaad aan ku helna haye dhahday xaaskii way aqbashay kaadidii geelay cabtay kaadidii geel haday cabtay ma aqaan inay sii wada laakiin subxaanallah ilaahay maqaadirtiisa hal bil kadib xaaskii uura kusoo baxay uur markuu kusoo baxay ninkii farxad meeluu isgeeyo uu waayaan ku dhahay maalintii dambeeto yani maxaa dhahay qofka saasoo kale markuu ilmo u sugaayo oo farxaddaasna ilaahay subxaana watacaala uu u saqiro yani farxadda maba qareeba isla markii intuu cararay uu saaxiibadiisa uu u tagay oo wuxuu dhahay alxamdulilah ilaahay wuu ii rumeeyey adinkana maxaa dhahay abaalkiina waxaa ku gudo ma aqaano xaaskayga alxamdulilah xaamilo waaye subxaanallah waa isfiirfiiriyeen labadii nin ila sheekada barankay ahayd waa isfiirfiiriyeen way qosleen maxaa sheegaysaa kaadida geela ay sheegteen ay dhahdeen hebel naagtiisa kaadi geela cabto intaasoo ciyaalay ku dhashay anigana kaadida geela maxaa dhahay xaaskayga u gey haddana uuray leedahay hal bil waaye way qosleen si u qoslaayeen u rafanaayeen waxay dhaheen anaga barankii aan kugu sameynaynaba barankigaan weligay ma arkin baranki kan ka faa'iido badan subxaanallah laakiin ilaahay subxaana watacaala ninkan niyadiisa ilaahay ogaa iyo haluhuu dhib soo maray yacni subxaanallah tawfiiqdan ilaahay aa waafajiyey markaasay intee say u qoslaayeen waxay dhaheen anaga waxaan wax ka jiraba malahano barankiyaa kugu sameynaynay wallaahi wuu aamini waaye laakiin kaadida geela horta waxaa ogaataan in ay daawo tahay kaadida geela waa daawo waa sidii xabasowdada camal waaye yani hal shay daawo uma ahan wax kasta oo loo niyeystay daawo u tahay kaadida geela soo marka sheekada horta meeshaasay ku dhammaatay laakiin kaadida geela rabaa inaa wax yar idinkaga sheekeeyo kaadida geela xanuun kastee daawo u tahay xanuun maqaarku ku dhaco xanuun caloosha ku dhaco gaas kansar yacni ayi xanuun oo caloosha ekfashin wax kastoo caloosha ku dhaco xanuun kasta madaxa meel kasta ay daawo u tahay kaadida geela xitaa kaadida geela maxaa la dhahayay waagii hore timaha lagu dhaqan jiray timaha aaday u bixisaa kulley waxaan u maleynaa salaadan in lagu tukan karo allahu aclam madax yani wax lagu dhaqaayo oo la cabayo kulley salaadan waa lagu tukan karaaya u maleynaa wax yani nijaase e ma ahan soo marka maxaa la dhahayay dumarkii hore sidii shaamba camle madax ugu dhaqan jireen timahana intay bixiso ay xariir ka dhigaysaa kaadida geela kaadida geela marka daawo waaye xanuun kastay daawo u tahay maqaarka xitaa maxaa la dhahay dhinta way soo celisaa qofka xasaasiye jirka ka qabo maxaa la dhahay xasaasiyada way ka suulinaysaa jirka wax kastoo maqaarka ku dhaco iyo wax kastoo caloosha ku dhaco kaadida geela daawo u tahay insha allah biidnillaah sheekadan wallahi sheekadii iigu yaabka badneeda ahayd waxaan rajaynaa idinkana sidaas oo kaleeta inaad ula yaabteen videogan sheer galaya meel dheer gaarsi